Despite the shortcomings and challenges in Somalia, there have been indirect electoral processes that were largely viewed as peaceful and acceptable to all political stakeholders, leading to a peaceful transfer of power. Unfortunately, this year, the ongoing electoral impasse risks that hard-earned political culture, which is one of the major positive achievements of the past 30 years. ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda Soomaaliya ahna musharax madaxweyne Xasan Cali Khayre oo shalay ka hadlayay dood uu soo qabanqaabiyey macadka siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka UK ayaa sheegay in dalka Soomaaliya uu qarka u saaran yahay in uu galo xasilooni darro siyaasadeed haddii ay dhammaato muddaxileedka madaxweynaha. Wuxuuna sheegay in laamaha fulinta ee dowladda Soomaaliya uu muddaxileedkoodii hore u dhammaaday. Khayre oo ka mid ah musharaxiinta ugu cadcad doorashada madaxtinimo ee waddanka ayaa dhanka kale hadalkiisa ku sheegay in dalka Soomaaliyeed uu u baahan yahay hoggaan awood u leh isu keenidda dadka iyo kartida dhalinyarada, uga faa'iideynta dalka awoodaha haweenka, dhisidda hay-ado dowladeed, kuna dadaala badqabka dadka Soomaaliyeed, fahmana caqabadaha waaweyn ee dalka ka taagan. Dadka Soomaaliyeed ayuu xusay muhiimadda ay leedahay joogteynta guulihii laga gaaray labadii doorasho ee dalka ka dhacday 8 sano ee u dambeeyey. Wuxuuna sheegay in kastoo caqabado ay jireen in Soomaaliya ay ka dhici jireen doorashooyin loo arkayay inay si nabad ah oo ay aqbali karaan dhammaan saamileyda siyaasadeed awoodana si nabad leh la isugu wareejiyo. Wuxuuna nasiib darro ku tilmaamay in doorashada hadda la wajahayo ay khatar gelinayso dhaqanka siyaasadeed ee awood isu wareejinta dalka Soomaaliyeed oo dalka Soomaaliya uu ugu horumaray wadamo badan oo qaaradda ku yiilay. Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in dalal badan oo u nugul sida dalkeena ay sababeen doorashooyin si qaldan loo maamulay. Isku day kasta oo salka ku hayo boob doorasho uu sababi karo dhibaato ay adag tahay in laga soo kabsado. Doorasho kasta oo lagu shubtana laga dhaxli doono natiijo aan la isla ogoleyn iyo dowladda aan sharci ahayn. Baarlamaanka Soomaaliya oo lafdhabar u ah dimuqraadiyadda dalka Soomaaliya ayuu hoosta ka xariiqay in waqtigiisu uu ku ekaa December 27 sanadkii tagay. Xasan Cali Khayre, ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, ayaa ka hadlay qaar ka mid ah guulihii la gaaray intii uu xafiiska joogay. Wuxuuna sheegay in dib u habeynta dhaqaalaha ee uu sameeyey ay sababtay in Soomaaliya ay noqoto dalkii ugu dhaqsaha badnaa ee ka soo baxa shuruudaha deyn cafinta. Si dalka uu uga baxo xaaladaha cakiran, wuxuu soo jeediyey in maamulka bedeli doona maamulka hadda jira, in uu hortabinta siiyo dib u dhiska hay-adaha dowladeed iyo abuuridda dhaqaale shaqeynaya si awood ay ugu yeelato bixinta adeegyada dadweynaha. Arrimaha amniga iyo cadaaladda ayuu hoosta ka xariiqay in ay yihiin muhiimadda koowaad ee maamulka iyo madaxweynaha la wareegaya xilka.